munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayay Cabdiraxmaan Odawa oo u taagan qabashada xilka madaxnimo ee maamulka Galmudug sanadka soo socda ee 2020 ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee dalka Uganda. Xafladan ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay iyadoona ay ka soo qayb galeen ganacsato, odayaal, mas'uuliyiin hore, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan dalka Uganda. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Odawa uu yahay aqoon-yahan u qalma qabashada xilka madaxtinimo ee Galmudug isla markaana ay taageeradooda la garab taagan yihiin. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaashii iyo ganacsatadii ka hadashay xafladda. Cabdiraxmaan Odawa waa runtii waa musharax mudan inuu Galmudug maamulo ama madaxweyne ka noqdo, xataa astaahila inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo. waa nin la yaqaano oo taariikh u dheer leh, soo jireen ah, ahludiin ah, waa family wuxuu ka soo jeedaa lagu yaqaano mataqaanaa diinta islaamka. haddaan nahay odayaasha Cabdiraxmaan Odawa aad baan u soo dhaweynaynaa. taariikhdiisa waa laga sheekeeyay, wax badanna waa laga og yahay, waana shirraban yahay. shirrabaad baa la yidhaha, waa shirraban yahay. waxaan isleeyahay marka waa nin ku habboon inuu hogaamiyo ama u tartamo ama oo qabto xilka madaxweynenimada ee Galmudug. Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo dhul lagu arag ee handana laga dhowr. ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Odawa waa ninkii Galmudug dhisay oo maaragtay meesha hadda ay joogta keenay. muxuu yahay marka? Cabdiraxmaan waa nin dulqaad badan, waana karakterka laga rabo hogaaminta. Cabdiraxmaan waa nin dad isku wad leh oo aan ama reer iyo badan aan lagu aqoonin. waa marka labaad, waana wax looga baahan yahay hogaamiyaha looga baahan yahay. marka saddexaad, Cabdiraxmaan waa nin galaangal badan, galaangal siyaasadda galaangal ay u baahan tahay. waa nin galaangal ku leh oo ay badanaa u saamixi kara inuu saaxiibo iyo dad muxuu ahaa kala duwan ku soo jiida haddii uu ku guuleysto maamulka Galmudug. waxaan aad iyo aad u taageeraynaa haddaan nahay dadka reer Galmudug inuu noqdo Cabdiraxmaan Odawa inuu noqdo madaxweynaha Galmudug. Cabdiraxmaan waxaan ku leenahay oon kuu sheegaynaa haddaan nahay reer Kampala, waxaan rabnaa dowladdaada kolley madaxweynaad noqonaysaa. madaxweyne markaad noqoto inaad u kala eexarin reer Galmudug, inaad soo jiido dhammaan gabdhahan aad ku darto. waxaan soo dhaweynaa aqoon-yahan mustaqbal leh oo dhalinyaro ah kuna habboon inuu hogaamiyo dalka oo dhan. maanta laakiin wuxuu u socdaa inuu hogaamiyo Galmudug. waa soo dhaweynaynaa, waa taageeraynaa, waan u hambalyeynaa, waxaan leenahay guuleyso. ardaydii ka soo qayb gashay xafladda oo dhankooda khudbado kala duwan ka jeediyay ayaa bogaadin iyo dardaaran u diray musharax Cabdiraxmaan Odawa. marka waxaan leeyahay dowladnimadu waa dadkuna waa Odawa. fadlan xildhibaan yaa doorta gudoomiyaha, fadlan xildhibaan yaa doorta dadka iyo shacabka ninka u roon waana Odawa. horta ina asaga soo sharax ma ahayn, ina anaga soo qabanno dhahniyo wadaan noogu habboon meeshan taga oo ku casuumna ahayd barnaamijka. laakiin kastoo noo imaado dhahnimo iyo barnaamijkan igu aamina, waxaan ku faraxsanahay si kalsooni leh oo codkeena buuxo una taaganahay har habeen inaan ku aamino madaxweynaha maamulka iyo dawladda Galmudug ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Odawa waa loo gartay, asna wuu doontay, annagana waa la jeclaanay inuu noqdo musharax madaxweyne maxaa la yiraahdaa Galmudug. xaq buu u leeyahay dastuurka Soomaaliya ayaa siinaya qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed in waxna doorto lana doorto. marka waxaan rabaa inaan laba shay kula dardaarmo Cabdiraxmaan Odawa. waa in uu samaystaa horta waxa la yiraahdaa political agenda siyaasadeed oo uu rabo amniga, dhaqaalaha, horumarinta inuu wax uga qabto. waa inuu samaystaa insha Allah kariim. waana filayaa inuu samaystay. waa ninka kaliya aan dhihi karo oo ka soo shaqeeyay arrimaha Galmudug. sababta wuxuu ahaa sida aad xasuusataanba xilligii Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka arrimaha gudaha. tijaabo ayuu soo maray, wuxuu tijaabiyay oo xog ka helay Galmudug. Galmudug way ka duwan tahay sidaan ka wada warqabnaa maamul goboleedyada kale. waa meel
waa meel kaaga baahan inaad hore u soo tijaabisay adigoo weliba xil haayo haddii aadan adigoo tijaabada noocaas oo kale soo maray aad isku sharaxdana way adkaanaydaa xargaha si u xirayaan inaad furfurto waxa weeye dadka hadda talada haya annaga ayay inaga wakiil yihiin waxaan rabitaankeena ahayn kuma shaqeeyan karaan dowladda iminka jirtana waxay isku tilmaamtaa inay tahay dowlad shacab marka shacabkii waxay leeyihiin waxaan taageernay ama dooranay mudane musharax madaxweyne cabdiraxmaan xuseen odowaa xafladan ayaa daba socota xaflado dhowr ah oo taageero loogu muujinayo musharax odowaa kuwaasi oo ka kala dhacaya daafaha caalamka. Shaafici Cusmaan Cali, Somali Cable TV, Kampala.